zakaatulfidrigaas maxaa lagu bixinaya? xadiidkii hadda aan soo qaadaynay saacan min tamrin aw saacan min shaciirin, nabigu xadiidkaa wuxuu kusoo qaaday bukhaari iyo muslim saac timira, saac shaciira. riwaayo kale bukhaari iyo muslim ay wariyeen saacan min طacaamin, saac cunno ah, saacan min tamrin, saacan min shaciirin, saacan min zabiibin. aqidna nabigu yacni waa uu sheegay suus oo cunno ah. cunnadaa marka haddii cunooyin kale lasoo qaaday, culummadu yacni way ku fasiraan in markaa burka looga jeeday waaka, ilaa carabtu burka dacaan bay isaga idlaaqi jireen, ama waaba noqonahayaa kelimo cunoo dhanba ku dhacda, oo kuwan damba markaa yacni ay iska noqdaan waxyaalaha la yidhaahdo min cadfil khaasi cala alcaam. sidoo kale nabigu wuxuu soo qaada timir, wuxuu soo qaada bahal shaciir la yidhaahdo garbe, ayaa soomaalidu u taqaanaayo galbeedkaasaa laga isticmaalaa, waa wax sareenka u dhow. wuxuu nabigu soo qaada zabiib, wuxuu nabigu soo qaada aqid waxa la yidhaahdo oo caano fadhiyo weeye. waxaa oo dhanba culummadu waxay sheegeen waxyaalahan xubuubta ah ilaa caanaha maahane kulligood nuuc walba ay yihiin zakadu way ku baxdaa. zakaatulfidri caanaha haddii la eegana isla xadiidkaa caddeeyey, caanahana zakada waa lagu bixin karaa, ama ha noqdo caanaha fadhiya ama caanahan kaleba ha noqdo. laakiin waxaa shardi noqonaya qofka yacni caanaha ku bixinaya inay dadkaasi yacni ay yihiin dad yacni quutulqaalibkoodu uu caano yahay. markii quutulqaalibkoodu marka caano uu yahay, dabcan sida baadiyaha dhacdo oo kale, hadday waxay quudaystaan markaa caano ay u badan yihiin, caanaha zakaatulfidriga lafsigooda waa ku bixin karaa. waayahay, marka sidaa haddii ay soo aroortay, ma lagu bixin karaa marka shayga zakaatulfidriga la yidhaahdo lacag ma lagu bixin karaa? waa masale loo baahan yahay in la isweydiiyo. waxa weeye culummada islaamka mucdamkoodu waxay qabaan zakadaas oo zakaatulfidriga la yidhaahdo wax qiimo la yidhaahda inaan lagu bixin karin. maxaa yeele waxay leeyihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam cunuu sheeg. hadda waxaa meesha ku jidha haddana nabiga waqtigiisi lacagi waa jidha, oo waxaa jidhay lacag midda annagoo aan haysana ka fiican, oo lacag dinaar la yidhaahdo dahabaa jiray, lacag daraahim la yidhaahdo qalina ayaa jidhay. nabigu marka ma uusan sheegin, nabigu wuxuu sheega cunno. cunnaduna sideeda asal ahaan haddii la eego, marka horeba haddii la bixinahayo lacagta way ka fadli badanta. maxaa yeele xadiidkii saxiixa waa tii ku sugnaa nabiga marka la yidhi ayu lislaami khayrun qaala an tutcima aطacaama wa taqra'a asalaama calaa man carafta waman lam tacrif. nabiga waxaa la yidhi waxyaalaha khisaasha islaamka, axwaasha islaamku yacni uu la yimid maxaa u khayr badan? nabigu wuxuu yidhi waxaa u khayr badan inaad cunno bixiso iyo inaad qofaad taqaan iyo qofaadan aqoonin labadaba adsanaan. marka nabigu markuu lahaa inaad cunno bixiso, hadda lacagi waa jidhe, ma uusan oran inaad lacag bixiso. faa-iidada marka meesha ku jidhaa waxaa weeye cunnada markii la eego, cunnadu qofka binu aadamka ahi ama waxaan noolaha ahi waxa noloshoodu ay ku taagan tahay waa cunnada, waa wax uusan ka maarmi karin. maanta haddii aada haysato gurigan oo dollar uu ka buuxo, wax cunnaana aadan haynin iyo wax aad dollarka uga gadanaysaa, waa baktiyaysa, waa ku agbaktiyaysaa adoo dollarkii dhex hurda. laakiin wax yaroo badara haddii aada haysato beriisa ama timira, maalintaa waa noolaanaysaa oo kale. marka waxa weeye lacagta waxtarkeedu waa waasido. lacagtu wax kugu tari karnaa inaad wax kale ku gaarto, laakiin waxtarka cunnadu waa toos. marka sidaa daraaddeed nabigu cunuu sheegay, ayadoo marka culummadu taa ay ilaalinahayaan waxay u badan yihiin weliba saddexda madhab ee madhabka shaaficiyada iyo midka maalikiyada iyo midka xanaabilada, saddexduba waxay qabaan inaan lagu bixin karin lacag. waxa keliya qaba in qiimo lagu bixin karo, daraahim iyo wixii la raba lagu bixin karo, waa madhabka abu xaniifa. weliba madhabkaasi waxa daliila oo u hayaa ma jidha, waxay keliya soo qaadaan qiyaasaad culummadu ay ka jawaabaan, ay leeyihin loogama qiyaas qaadan karo, qiyaasaadkaasina sax ma aha. qiyaasaadkaasina sax ma aha. waxyaalaha xataa ay soo qaadaan waxaa ka mid ah khabar xaafidka bukhaari la yidhaahdo uu bukhaarigiisa kusoo qaaday, oo saxaabiga mucaad ibnu jabal la yidhaahdo dad zake uu ka qaadahaya yaman markii loo diray uu yidhi dhar keena oo meeshaad masagada iyo garbaha aad keeni lahaydeen dhar baan idinka qaadahaya. oo weliba daawuus ayaa warkaa sheegahaya, mucaad ka sheegahaya. bukhaari wuu soo qaadaa masalada, laakiin markay ka waramaan
shuraxda laftigooda waxay leeyahay xadiidka xadiid saxiixa ma aha sababtoo ah daawuus mucaad waxba kama maqlin bukhaari laftigiisuna sanad ku warin maayo wuxuu warinahayaa daawuus baa wuxuu yiri buu leeyahy mucaad wuxuu yiri oo markaa wuxuu ku warinahayaa waxaa la yidhahdaa siiqatu tacliiq marka kaas iyo waxyaalo kaleoo qiyaasaad oo ah nabigu markuu ka warramahayay mathalan zakada haddii 25 geelu markuu gaaray nabigu yiri bintulmakhaad baa laga bixinaya haddii qofku bintulmakhaad uusan haysanna ibnulabuun marka taasoo kale waa soo qaada iyadana hadda waxaa la yidhaahdaa ibnulabuun laftigiisu haddee labada shay waa laba shay oo nabigu sheegay haddii kaa la waayo ka hadla bixiyaa nabigu yiri maahane nabigu qiimeyn kama hadlin wax qiime la yidhaha taqwiima nabigu ma uusan soo qaadin waxyaalo noocaasoo culimmadu ay ka jawaabeen oo waxaa loo dalisanaya haddii la eego wax bayin aan ku ahayn ayay soo qaadaan sidaa marka darteed culummadu waxay leeyihiin oo badankoodu ay qabaan inaan la bixin karin imaamu shaafici wuu kusoo qaadaa ummigiisa kitaabkan kitaabul ummi lagu magacaabo imaamu malik kitaabka mudawana la yidhaahdo markuu arrintaa ka hadlayay ayuu wuxuu yidhi qofku inuu zakada zakaatulfidriga la yidhaahdo booskeeda inuu badeeco bixiyaa u gudi mayso muxuu daba dhigay walaysa kamaa amara nabiyu buu arrintaani ma ahan buu yidhi nabigu siduu amray nabigu wuxuu yidhi buu yidhi saaxa la bixiyo nabigu cunuu sheegay buu yidhi sidoo kale ninka yacni faqiiha ah ee weliba muxadithna waa uu yahay la yidhaahdo ibnu qudaama oo xanaabilada ka mid ah kitaab wuxuu iska leeyahay almuqni la yidhahdo kitaabkaasi marka wuxuu u xisaaban yahay qolada xanaabilada meesha shaaficiyada kitaabka majmuuc la yidhaahdo imaamu nawowi u leeyahay kale booskaasoo kale u jooga oo wuxuu ka warrabaa mathalan masalooyinka adiladoodii iyo fuqahada kale waxay qabaan isaguna wuu soo qaadanahayaa in qiima aanay u gudayn madhabka yacni imaamu axmed ibnu xambalna waa sidaa waliba wuxuu sheegahayaa oo kasoo naqlinahayaa muxadidka abu daawuud la yidhaahda ayaa wuxuu yidhi buu yidhi qiila liaxmadu wa ana asmacu qiila liaxmada wa ana asmacu ucdii daraahima yacni fi sadaqati lfidri faqaala akhaafu an laa yujzi'uhu khilaafu sunnati rasuuli illah wuxuu yidhi imaamka abu daawuud la yidhaahdaa wuxuu yidhi buu yidhi imaamu axmed baa waxaa lagu yidhi buu yidhi anigoo maqlahaya nin baa yidhi daraahim ma bixiya macnaha isagoo ujeeda zakada zakaatulfidriga markaan bixinayo daraahim ma bixiya markaasuu wuxuu ugu jawaabay buu yidhi waxaan ka cabsanahayaa inaysan midaasi kuu gudin khilaafu sunnati rasul sababtuna waxaa weeye sunnada nabiga ay khilaafsan tahay nabigu lacag ma uusan sheegin weliba isagoo jasminahayana masalada waa uu jawaaba madhabkiisu sidaasuu marka qabaa saddexdaas marka madhab sidaasay ku tageen abu xaniife keliya ayaa wuxuu qabaa in qiimo ahaan la bixinahayo ayuu qabaa bukhaari laftigiisuna culummadu waxay ku sheegaan inuu ka mid yahay walowba isagu markaa zakaatulfidriga uusan gaar uga hadlayn laakiin markuu xadiidka iyo soo qaadahayay in zakada qiimo lagu bixin karo weliba zakada caadigaa oo dhan buu ka hadlahaya midaana kama bedelna weliba markay shuraaxdu ka hadlahayaan waxay yidhaahdaan bukhaari masale xanafiyada uu ku waafaqay midaasaa laga arkaa baa la yidhahdaa isagoo weliba lagu yaqaano inuu inta badan xanafiyada khilaafo oo masaa-ishooda uu ku khilaafo maxaa yeelay haddee inta badan isagu wuxuu u badan yahay adilada markii la eego adilada waadixa inuu raaco xanafiyada laftigoodan inay daliil la-yihiin ma aha laakiin waa niman laftigoodu balaayaayoo meelo badan bay fiirfiiriyaan oo caray ka wareegaan oo qiyaasaadkii aada u isticmaalaan marka sidaa daraaddeed waa jidhaa in mathalan abu xaniifa uu qabay waa jidhaa salafka laftigiisa qaar ka mid ihi inay qabeen in lagu bixin kala qiimo ugamana jeeda hadalka ah ciddii qabta inaan ku cambaareynayo laakiin sida adiladu ku timid waa sidaa weeye waana sidaa islaamka mucdamkiisu ay qabaan imaamu nawowi sharxu muslim markii uu ka hadlahayana wuxuu leeyahay caamatulfuqaha fuqahada mucdamkoodu waxay u tageen ama ha noqoto qolooyinkan asxaabulmadaahibta ah ama ha noqoto dadkii salafka ahaa waqtigooda wixii joogay oo xataa ay ka mid yihiin asxaabu rasuulillaahi laftigeedii waxyaalahay u tageen waxay ahayd inay zakada zakaatulfidriga la yidhaahdo inay ku bixiyaan qiimo inay ku bixiyaan ee waxaan ujeedaa inay ku bixiyaan cunno oo markaa wax qiimo la yidhaahdo aanay ku bixinin marka sidaa daraaddeed masaladaas waxaa loo baahan yahay in la iska jiro maanta waxaa aada iyo aada u badan dadka in loo fidyoodo la yidhaahdo lacag ku bixiya iyadoo weliba yacni la oranahayo dadka loo muujinahayo macnaha qofka miskiinka ah lacagta ayaa u faa-iido badan lacagta haddii muxuu ahaa la siiyo wuxuu rabuu ku qabsanahayaa
waxyaalo kale uu doorbidahayo ku samaynhaya. arrinta marka noocaas oo kale ahi waa arrin runtii iska caqliyan ah, laakiin meesha waxaa taalla wuxuu mar haddii daliil cadi uu ku soo arooray oo sidaana asxaabtii ay yeeleen oo fuqahadiina badankoodii marka ay qaadeen, waxaa la rabaa marka macnaha in la ilaaliyo ayaa la doonaya. sababtoo ah inta badan ra'yi laguma saleeyo xagga diinta haddii ra'yi lagu saleeyo, hadda ka hor waxaa dhacday saxaabiga muxuu ah la yidhaha cabdullaahi bin cumar, ilaa waa ka nabiga ka soo aroortay nebigu marka yacni uu dawaafahayo inuu xajarka xajarul aswad la yidhaha nebigu inuu dhunkoon jiray, inuu taaban jiray, inuu ku sujuudi jiray. marka nin baa inta arrintaa weydiiyo asagoo xoogaa arrintaa cuslaysanaya buu waxyaalo weydiiyo wuxuu yidhi ara-ayta in zuuximtu ara-ayta kada wa kada, bal ka waran buu yidhi haddii muxuu aha lay ciriiriyo, hadday sidaa dhacdo xoogaa wuxuu qiil u raadinhayaa sunnadaa inuu ka leexdo. markaasuu wuxuu yidhi ijcal ara-ayta bilyaman buu yidhi, ra-aytu rasuulallahi yuqabilu lxajara buu ara-ayta yaman u dhig buu yidhi, anigu ilaahay rasuulkiisii oo dhagaxa dhunkoonhayaan arkay buu. marka waxaa loo baahan yahay haddee arrinta aad sheegayso qiimaa fiican iyo kidaa, nebi maxamed waqtigiisiba qiima waa u jira, lacagna waa ay jidhay. midda kalena haddaad hadda xataa miskiin ugu roonaanayso wuxuuba wax badan maahan oo qofkiiba waxa laga bixinhayaa waa saac. laakiin haddii la doonahayo masaakiin in wax la taro, labadaba waa isku darsan karnaa. sababtoo a dadka hadda dabadaha hadda maanta aan joogno lacagaha ka dirhaya, waxaa dhici kadha inay diraan $50, waxaa dhici kadha inay diraan $100, oo waxa laga doonahayo oo zakaatulfidriga cunno ahaan markii la eego aysan ka badnayn $20 ama $10. marka labada waa isku oofsan kadhaayo qofka lacagta aad u dirayso ehelkaa waxaad tidhaahdaa cunadii iga bixi, lacagta inteedaba inta kala qaado. sidaasaad marka sunnadii nebigana aad ku oofisay, qofkiina haddii lacag aad doonaysa lacag aad ku siiso uu ku helay. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa arrintii zakaatulfidriga ku saabsanayd. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.